waxaan ognahay maanta Soomaalida waxa ku mahmaahdaa rag gogoshi waa nabad baa leeyahay haddii nabad la waayo masaajidada meelo lagu cibaadaysanayo la isugu manaya ma jirayaan ganacsi iyo business soconaya ma jirayo maqaaxiyo meelo la isugu sheekaynayo dhalinyartu ku sheekaysanaysa kubad la ciyaaraya ma jirto waxbarasho soconaysa ma jirto hurdo aseexanaysa ma jirto haddii nabad la waayo haddii laakiin nabad la helo gidaarada iyo banaanada seexan karta laakiin haddii la waayo sariirtaadan seexan karin oo markay kaaga dhacdo baad sare u boodaysaa waxaan leeyahay hala ilaashado nabadgelyadeena oo yaynaan noqonin doqontii haruurka raqaday ee intii ugu dambaysay ka tagtay yaynaan noqonin waxay nahay dad jira taariikh leh dhaqan soo jireena leh muslin ah isla markaana ku faana inay xalistaan waxyaabahooda iyo wixii khilaafaad ay yimaada inay xalistaan dad ku faana way nahay ma nihin maanta kuwii dib u raaci lahaa raadkooda ee ku noqon lahaa halkii 1990kii dadkani ay taagnaayeen waxaan doonayaa marxalado burbura barakac leh silic iyo bayhoof iyo darxamo leh in dhalinyartan 1990kii dhalatay looga sheekeeyo ee ayagu nabadda ku dhashay ee nabadda ku ciyaaraya ee beerkana ku quraacanaya beedkana ku qadaynaya in looga sheekeeyo marxaladaha dadku ay soo mareen in lagu qaaday ciyaalka ilkaha lagu qaaday sidii bisada oo ilaa dulcad koriyamaya lagu guro lagu geeyay in looga sheekeeyo loo baahan yahay oo midiyuhu ka sheekeeyo oo odayaasha iyo dadka waaweyn ay ka sheekeeyaan oo looga sheekeeyo yani galeydii dirxugu dhex yaacayay ee ay cuni kari waayeen xooluhu ay diideen ee ilmihii yaraa markii la siiyay uu yidhi aabba imisaan u liqaa kiniinka imisaan u liqaa